asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada dalable media waxaan idinla wadaagi doonaa khasaaraha ka dhashay dib ka kacay xarun ku taalla magaalada muqdisho iyo ku dhowaad 100 qof oo laga soo badbaadiyey halkaasi. waxaa kale oo aad maqli doontaan maxaa ka soo baxay kulankii uu la yeeshay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud golaha wasiirada ee maamulka koonfur galbeed, guddoomiyihii degmada xamarweyne oo dib loo sii daayey, iyo waxaa kale oo aad maqli doontaan xaaladaha guud ee muqdisho iyo baydhaba. soo dhawaada. haddii aad inagu cusub tahay janaalka subscribe inoo saar, muuqaalka inoo like garay, asxaabtaada la wadaag, aragtidaada inoogu soo gudbi qaybta faallada. mahadsanidin. faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dab khasaare hantiyadeed geystay oo xalay ka kacay xarun ku taalla magaalada muqdisho, iyadoo laga soo badbaadiyey ku dhowaad 100 qof oo ku sugnaa halkaasi. dabka ayaa si gaara uga kacay xarun dadka qur'aanka lagu saaro oo ku taalla degmada hodon, gaar ahaan xaafadda albaraka, taas oo lagu magacaabo gargaar, halkaas oo habeennimadii xalay uu qabsaday dab xooggan. howlgal saacado kooban qaatay oo ay samaysay waaxda gargaarka ee gurmadka degdega ah ee gobolka banaadir ayaa laga soo afjaray dabka, iyadoo sidoo kale gurmad caafimaad u fidisay dadkii xanuunsanaa ee ku jiray xaruntaasi. sidoo kale waxaa lagu guulaystay in goobta laga soo saaro ku dhowaad 100 qof oo ay ku jiraan dad qaba xanuunnada dhimirka, sida ay muujiyeen sawirro lagu baahiyey baraha bulshada ee internetka. dabka oo ahaa mid aad u xooggan ayaa la xakameeyey, waxaana laga hortegay inuu ku sii fido guryaha ku dhow xarunta uu qabsaday oo ku taalla aagga xaafadda albaraka ee degmada hodon. xaaladda ayaa deggan, waxaase xarunta qur'aansaarka ee gargaar laga dareemayaa saamaynta dabka, iyadoo saakay ay istaagtay shaqadii halkaasi ka socotay maadaama uu dabka gubay qaybo badan oo ka mid ah dhismaha xarunta. si kastaba ahaatee, gubashada goobaha ganacsiga iyo xarumaha kale ee ku yaalla caasimadda ayaa marar badan soo laalaabtay, dowladduna ma baarto sababta uu celceliska dabkan u geystay khasaare hantiyadeed oo xooggan. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo hogaamiyaha ku-meelgaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed jibriil cabdirashiid xaaji ayaa magaalada baydhabo shir kula yeeshay golaha wasiirada ee maamulkaasi iyo taliyaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed. shirka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa looga hadlay xaaladda guud ee deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya, dardargelinta howlaha xasilinta, sugidda amniga, la dagaalanka kooxaha nabaddiidka ah, gurmadka abaaraha iyo iskudubaridka dadaalada dowladeed ee lagu xaqiijinayo nabad iyo horumar waara oo ka hana qaada guud ahaan deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya. inta uu kulankan socday, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa warbixinno faahfaahsan ka dhagaystay wasiirada koonfur galbeed iyo mas-uuliyiinta amniga dalka oo ka warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee maamulkaasi iyo amniga deegaanada shabeellaha hoose, baay iyo bakool. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale adkeeyey muhiimadda ay leedahay midaynta awoodda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka si loo dardargeliyo adeegyada bulshada, dibudhiska hay-adaha maamulka iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha deegaanka. kulankan waxaa ka horreeyey mid kale oo uu madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud la yeeshay guddoomiyaha degmada ahna duqa magaalada baydhaba cabdulaahi cali watiin, kaas oo diradda lagu saaray xaaladda guud ee magaalada, gaar ahaan dhinacyada amniga, horumarka iyo adeegyada bulshada ee ay u baahan yihiin shacabka ku nool magaalada baydhaba. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa duqa degmada ka dhagaystay warbixin ku saabsan xaaladda amni ee magaalada baydhaba, dadaalada socda ee lagu xoojinayo nabadgelyada, horumarka laga sameeyey adeegyada aasaasiga ah iyo caqabadaha weli taagan ee u baahan taageero dheeraad ah. dhinaca kale, madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu amar cusub duldhigay hay-adaha dowladda, isaga oo faray in la dardargeliyo hirgelinta mashaariicda horumarineed iyo barnaamijyada gurmadka si loo xoojiyo adkaysiga bulshada loona hormariyo kaabayaasha nolosha ee magaalada baydhaba. waxaa kulanka ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe, hogaamiyaha ku-meelgaarka ah ee koonfur galbeed jibriil cabdirashiid xaaji, iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta cali xoosh, iyo taliyaasha hogaaminaya ciidamada, hay-adaha nabad sugidda, booliiska iyo xoogga dalka. warar dheeraada ayaa ka soo baxaya sii deynta guddoomiyihii degmada xamarweyne ee gobolka banaadir cismaan muriidi cali
oo shalay loo taxaabay xabsiga dhexe kadib amar diidda uu sameeyey. ilawareedyo xilkas ah ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in guddoomiyaha la soo daayey kadib markii ay xariggiisa amartay maxkamadda gobolka banaadir oo ku eedaysay in uu is-horistaag ku sameeyey fulin maxkamadeed oo ku aadan dhul ku yaalla gudaha degmada xamarweyne ee gobolka banaadir. sidoo kale xafiiska xeer ilaalinta qaranka oo loogu yeeray guddoomiye cismaan ayaa ku wargeliyey xariggiisa, sidaas ayaana loogu gudbiyey xabsiga dhexe inkastoo saacado kadib uu dib u helay xorriyaddiisa. si kastaba haatee dadaalada ay sameeyeen mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir, xildhibaano iyo dad kale oo waxgal ah ayaa lagu soo daayey guddoomiyaha, taas oo ka badbaadisay in xalay uu seexdo xabsiga dhexe ee xamar. horey guddoomiye cismaan muriidi ayaa u soo saaray war-saxaafadeed uu ku diidayo sida uu sheegay boob lagu hayo dhulalka danta guud ee ku yaalla degmadaasi. hal taako oo ka mid ah goobaha danta guud ee xamarweyne sinaba looma dhisan doono. xeer ilaalinta iyo hay-adaha kale ee khusaysa iigu yeera subax kasta waa diyaar, waqtina waan siinaynaa, xushmad aad u weyn ayaan u haynaa hay-adaha garsoorka. hase yeeshee taas micnaheedu ma aha inaan ka tanaasuli doono ilaalinta hantida dadweynaha. waajibkayga iyo mas-uuliyadda iga saaran xamarweyne marna kama laabanayo, ayuu yidhi guddoomiyaha. waxa kale oo uu sii raaciyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo ah awoodda ugu sarraysa ee ilaalinta nidaamka, sharciga iyo hantida guud. go'aan kasta oo la xidhiira masiirka iyo hantida dadweynaha, maadaama wakiil uga ahay cid saddexaad oo aan ka aqbalayno waddo danta guud ah in ay dhisato ma jiri doonto, ayuu yidhi guddoomiyaha. si kastaba haatee xarigga saacadaha qaatay ee loo geystay guddoomiyaha maamulka degmada xamarweyne ayaa dhaliyey hadalhayn xooggan, maadaama si weyn loogu falanqeeyey baraha bulshada ee internetka. guud ahaanna saaxiibayaal, warbixinteenni intaa ayaan kusoo koobaynaa. waxaan idinka codsanaynaa haddii aad inagu cusub tahay inaad janalka sabscribe inoo saarto, muuqaalka inoo laagarayso, asxaabtaada la wadaagto, aragtidaadana aad inoogu soo gudbisa qaybta faallada. mahadsanidin.